Waxaa suuragal ah inaad dhowr jeer maqashay cunto fiber leh amaba cuntada qolfoofta leh sida digirta. Waa muhiim. Haddaba maxay tahay waxa loo yaqaan diet fiber? Maxay inoo tartaa cuntooyinka laga helaa? Cuntooyinka aan cunnaa waxa ay ka kooban yihiin carbohydrates, baruur ama fat, proteins amaba borotiinyo, kuwaas oo dhammaantood jirkeenu uu awood u leeyahay inuu dheefshiido kana faa'iidaysto iyada oo lagu darayo qulqulka dhiigga jirkan uu isticmaalayo. Balse waxaa jirta qayb ka mid ah cuntada oo loo yaqaan diet fiber, taasi oo jirkeenu uusan awood u lahayn inuu dheefshiido. Qaybtani waxay si gooni ah uga timaadaa cuntada dhirta, jirkuna ma awoodo dheefshiidideeda, sidaas daraaddeed waxa ay raacdaa saxarada iyadoo aanan la dheefshiidin. Si fudud waxa uu qofku uga fahmi karaa diet fiber-ka aan ka sheekeynayno haddii uu cuno cuntada digirta ay ku jirto. Waxaa saxarada soo raacda qolofta digirta oo aanan wax isbeddela ku dhicin amaba aan la dheefshiidin, waana nooc ka mid ah fiber-ta aan ka hadlayno. Diet fiber-ka waxaa si guud looga helaa khudaarta noocyadeeda kala duwan, digirta, galleyda, masagada, qamadiga iyo dhammaan cuntada ka timaada dhirta ee leh qolofta. Fiber-ka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa soluble fiber, waxa ayna ku milantaa biyaha si ay u samayso walxo jiidjiidmaya gel-like material. Waxaa laga helaa karootada, tufaaxa, boorashka iyo noocyada digirta. Qaybtani loo yaqaano soluble fiber-ka waxa ay hoos u dhigtaa heerka dufanka dhiigga ku jira iyo sokorta blood cholesterol and sugar level. Qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa insoluble fiber, waxa ay cagsi ku tahay midii hore aan kor uga soo hadalnay. Waxay ka caawisaa dadka inay caloosha u socoto ama waxay ka hortagtaa waxa loo yaqaano calool fadhiga ama constipation-ka, iyadoo kor u qaada waxa afka qalaad lagu yiraahdo bowel movement. Waxaa laga helaa cuntooyin ay ka mid yihiin bataatiga, midka macaan, baradhada, digirta, qamadiga iyo cauliflower-ka. Qofka waxaa laga rabaa inuu maalintii qaato xaddi go'an oo fiber ah, cuntadiisana ay ku jirto. Haddii qofku uu ka yar yahay da'da 50 sano uuna yahay qof rag ah, waa inuu qaataa 38 garaam. Haddii uu dumar yahana waa inuu qaataa 25 garaam. Haddiise qofku uu ka weyn yahay da'da 50 sano uuna yahay qof rag ah, uu qaadanayaa 30 garaam, halka qofka dumarka ahna ay qaadanayso 21 garaam. Si qofku uu u helo fiber-kan, uma baahna inuu meel kale ka raadiyo, kaliya wuxuu u baahan yahay inuu cuno cunto isu dheelitiran oo ka kooban qaybaha kala duwan ee cuntada. Diet fiber-ku waxa ay noo leedahay faa'iidooyin dhowr ah. Faa'iidooyinkaas ay noo leedahay diet fiber-kana waxaa ka mid ah: fiber-ku waxa ay ka caawisaa caloosheena inay socoto, waxa ayna ka hortagtaa calool fadhiga ama waxa loo yaqaano constipation-ka. Sidoo kale, cunidda cuntooyinka ay ku badan yihiin fiber-ka waxay naga caawisaa joogteynta caafimaadka mindhicirrada, iyada oo ka hortagta cudurro dhowr ah ay ka mid yihiin kansarka ku dhaca mindhicirrada ee loo yaqaano colorectal cancer-ka, cudurka baabasiirka, hemorrhoids, iyo cudurka kale ee loo yaqaano diverticular disease. Fiber-ka waxa ay ka qayb qaadataa koontaroolka heerka dufanka iyo sokorta dhiigga. Ugu dambeynna, diet fiber-ka iyo cuntooyinka ay ka samaysan tahayba waxa ay qofka ka caawiyaan joogteynta cayil ama miisaan normal ah inuu qofku yeesho. Sababtuna waxa ay tahay cuntooyinka fiber-ka ka samaysan inay yihiin cuntooyin culus oo qofku haddii uu qaato waqti dheer caloosha ku jiri kara, isla mar ahaantaana qofku uusan dareemaynin wax baahi ah, taasi oo meesha ka saaraysa in qofku dhowr jeer oo kala duwan uu wax cuno. Sidoo kale, cuntooyinkaasi maadaama ay ku jirto fiber-tu waxa ay nuugtaa sokor fara badan, taasi oo yareynaysa xaddiga sokorta ee qofka jirkiisa galayso.